بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بلايا دمانتيد ما الله ينقل نبت قليل كوي حمان دن الله ينقل نبت قليل اجتماعنا نقولنا يا أمانتا سيارة علي ان جوغنو walaalaheen ku ay ku dhan yihiin fadliga ay leedahay siyaaradu taan Allah inaga siiyo istimaacan u nimidnay kii khayr noqdo inta kadib waxaan u dhaafayaa arintii meesha aanu nimidnay iyo sida ay noqotay wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam kullu shay la yabda'u bismillah fa huwa aqda' buur shay alla shaygan lagu bilaabin bisanka ilaahay baraka male buur bisanka ilaahay ku bilawnay waxaan doonaa khayrna waan ka helaynaa intaasi waxa weeyaan waa ducadii waxaan u dhaafayaa imika arrinkii ka dhexdhexeeyey labada reer ee wada walaalka ee ay ka mid yihiin maxamuud cali iyo axmed cali ka dhexeeyey ee lahaa inay wada hadlaan labadii reerba waxay ku dhameeyeen way isku tanaasuleen midba kii kale ayaabuu yuu tanaasulay way isku tanaasuleen arrinkiina si fiican ayaaba iskugu gacan qaadeen dadka waxaanu sheegaynaa kuwa dibadaha joogayo ee arrinkaa naga filaye naga yeelaa war marjooga raggaas maxay maanta odhan yeelayaan miyay tafarruq bay keenayaan mise way heshiinayaan waxaan ku heshiinay wanaag iyo sharaf baan ku heshiinay iyo wixii dambe ee dhexdayada oo si fiican oo warqad fiican u qaranno oo samaysano dad walaalo ku noqono sidaas ayaan ku dhamaysanay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh balaaya dhammaanteed ma Allah inaga nabad geliyo kuwii xumaan dhan Allah inaga nabad geliyo اجتماعنا نقولنا يا أمانتا سيارة علي ان جوغنو walaalaheen ku ay ku dhan yihiin fadliga ay leedahay siyaaradu taan Allah inaga siiyo istimaacan u nimidnay kii khayr noqdo inta kadib waxaan u dhaafayaa arintii meesha aanu nimidnay iyo sida ay noqotay wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam kullu shay la yabda'u bismillah fa huwa aqda' buur shay alla shaygan lagu bilaabin bisanka ilaahay baraka male buur bisanka ilaahay ku bilawnay waxaan doonaa khayrna waan ka helaynaa intaasi waxa weeyaan waa ducadii waxaan u dhaafayaa imika arrinkii ka dhexdhexeeyey labada reer ee wada walaalka ee ay ka mid yihiin maxamuud cali iyo axmed cali ka dhexeeyey ee lahaa inay wada hadlaan labadii reerba waxay ku dhameeyeen way isku tanaasuleen midba kii kale ayaabuu yuu tanaasulay way isku tanaasuleen arrinkiina si fiican ayaaba iskugu gacan qaadeen dadka waxaanu sheegaynaa kuwa dibadaha joogayo arrinkaa naga filaye naga yeelaa war marjooga raggaas maxay maanta odhan yeelayaan miyay tafarruq bay keenayaan mise way heshiinayaan waxaan ku heshiinay wanaag iyo sharaf baan ku heshiinay iyo wixii dambe ee dhexdayada oo si fiican oo warqad fiican u qaranno oo samaysano dad walaalo ku noqono sidaas ayaan ku dhamaysanay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh allahumma salli ala muhammad بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعن كهذا يا أرنكي بهبر إلي أي أو إلي سيارة وأي أوتي بدي سيارة دي وجدتي أرنكي خدحيي أنا جو عبد الله عوالا وعن لا هاي أرنتي درجة وحلو فرديا ترى العق وحوي way ka taraasulay bahabar cili labadii dhan axmed iyo
iyo maxamuud way isku afgarteen wayna ka talaasileen walaal bay ahaayeen kolka hore walaal bayna ka garteen arrinkii oo sidii bahabar cili ay ahayd inaanu soo celinana 41 nin baan ugu fadhinaa imika geedka faralacag wuuna naga dhammaaday waa la isku gacan qaaday waa laga bogsaday hawl wixii kale bahabar cili u yaalay baa loo fadhiyaa arrinkii sidaa ahaa eed maqasheen sidaa baa lagaga bogsaday ku guda joogay iyo ku bandar joogay iyo ku qorba joogay baa sidaa baa lagaga bogsaday idinkuna nagu ogaada midooba meel kaliya arrinkiinu ha noqdo halkaa loo joogto weligay aan lahayba maqal miyaan maanta aan la kulmay waxaa taasoo ahayd xumihii geeyaraa oo waxaan qaadi kari weyne ahaa haddana isaga oo yar maanta waan ka bogsanay waxaan u bishaaraynaynaa walaalaha iyaga dabaduna umalaha warkan inaynu soo gaadhi doono degdeg sidayadan iyo inaynu naga raagi doono ma kala garanayee intaan farxnay ka badan baad farxaysay waxaanan jecelahay in haddii maaragtaanay ina celi wixii horena uu dhaafay annaka oo u diyaarsanayn maanta inaan u dhexdhexaad yahaano cadil iyo ree oday waxay nagu ahay dad yani lagu wado mahligaadoo kale intii aanan heshiiska la gaadhin walaalaha iyagii baa naga soo gaabiyey si fiican deeto markay naga soo gaabiyeen waxay noo noqotay farxad weyn kolka horna waxaan ka baqaynay waa raggaa isku cadhoonayee talow meel ku qabsadaan hadhow oo hebel baa sidan u exday iyo hebel baa kanii sheeko laga reebaa alxamdulilah alxamdulilah waa 4 celiyoos garab joogta imikana waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan cabdikariim nuur cismaan kana tirsan xubinta afraad raxmatullaahi wabarakaatu anigoo cabdulkariim nuur cismaan ahna xildhibaan ka tirsan gobolka selil marka lagu soo diiqo ama ay tahay arrinta ina celi waxaan noqdaa reer boorama oo halkaan joogi waxa weeyaan dhistiri boorama waxa weeye halka laga siyaarto awowgay siyaaradii celi ayaan imanay bay ahayd kama tirsanin naga aamuso waxa weeyaan kolkii siyaaradii laga ducaystay ee la dhammaystay khilaafaad waayadanba la dareensanaa dhibna nagu hayay ayaa jiray kiibaa loo baxay oo faralacag loo tegey faralacag markii la tegey waxaan ka mid ahaa guddiga loo saaray 4 jilib ka kooban arrintaa inay ka gaadho heshiis turxaan bixin walaalnimo intaanan maaragtay annagu aynana soo gaadhin walaalihii arrintaa isku hayay ayaa naga soo gaabiyey khaasatan muducigii oo maxamuud celi ahaa iyaa naga soo gaabiyey oo yidhi waxaan tabanayaba waan ka tanaasulay waan ugu ducaynay annakuna wixii maaragtay dhib nagu noqon lahaa iyo guddinimadii isagaa naga fudaydiyey waan ku wada faraxnay waxaan ogeysiinayaa cid kasta oo magacayna celi ku abtirsata dhagaheeda iyo daba hadalkaa annagu aan u fadhinaa wuu ku soo dhici jiray waxaan maanta u sheegayaa in arrinkaasi wax laga bogsaday aw yahay oo walaalnimo iyo heshiis iyo farxad iyo duco aw ku dhammaaday wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaa odayada ugu waaweynaa reeraha ay uga hadleen sida hooyadii reeraha ugu waaweynaa ay uga hadleen heshiiska dhabta farxadda leh isku tanaasulka tolnimada ah iyo horta arrintii ku dhammaatay tolkuna wax uu kala jiijan karaa
markuu isku yimaadana waa dhamaysan karaa isagoo cidiba dhex gelin tolli kale soo diyaar garoobayna markay tanaasulkaas ugu muujiyeen aad iyo aad baa loogu farxay arrintaas aas bay ku dhamaatay halkana waxa u fadhiya 40 oday goob iyo 40 oday oo sameyn doonta cawaaqibka dambe xeerka lagu dhaqmi doono xeerash lagu dhaqmi lahaa ee ka jabiyeen hadhow dabiila uu noqon lahaa ee dhaqana waxa dhaqanka ahaa weeji tolnimaduna waxa ku dhaqantaa waa dhaqan maaha siyaasad kii dhaqanka ahaa weeyi kan loo fadhiyana kii tanaasulkiyo walaalnimada lagu keenayna isaga weeyi odayaasha 40 loo xuleena wixii dambe cawaaqibtiisa lagu dhaqmi lahaa nolol ayay qoraal ku sameyn doonaa iminkana waxa ku soo dhameynaya Cali Maxamuud Hargeysa ka yimid laba beelood oo gaar isku khilaaf ka dhaxeeyay inay iyagu isku tanaasuleen sida odayaduba sheegeen oo iyagu isku tanaasuleen intii kalena ay ku ducaysay inay ku aqbashay tanaasulkaas oo khilaafkii mataqaanaa ka dhaxeeyay oo mid walba iska dhaafay wuxuu tabanayo iska dhaafay oo midnimada Bahabar Cali oo ka raacay sida darteed sharci xeera ayaa loo sameeyaa xeerka baa la qorayaa xeerka kii jabiya iyo hadhow dambiilaha labada khilaaf ka dhaxeeyay iyo 40 ciliba xeer baa loo sameeyaa xeerka bayna ku soconaysaa waxa la ogaanayaa sida wayba sheegeen dawladda iyo daaqilkaba in mataqaanaa Bahabar Cali isku raacday oo arrinta ay dhamaatay oo loo dhaafi doono danaheeda kale oo wax ka fara badan ay u dhaafi doonto in cili oo maanta dhan wada jeeda ayaa farxad u ah adduunyada waan sheegaynaa qurba joogta iyo magaalooyinka dhammaan waan wada sheegaynaa in sida la isku raacay ninkii mataqaanaa maxaa ka soo bixi lahaa wanaag iyo khayr baa ka soo baxay shirki halka loo yimiday wanaag buu ku dhamaaday hawlaheeda kale u dhaafaysaa turxaan bixintiina way dhamaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka beeshu waxa iskaga kala timiday 4 degmo ee caamka ku tahay degan tahay sida Luhaya degmada Luhaya Baki iyo degmada Sayla degmada Boorama 4 degmo ee caam ku tahay bay ka kala timiday markay isku timiday dhamaysatay siyaaradeedii iyo hawlaheedii kale turxaan bixin bay dib u gashay turxaan bixinta markay dhowr hameen markay 3 dhalaarood labadii hameen oo horeysay wadatay waxa isla garatay in makti maxaa ku oreeyay la wada bixin jiray dib loo jadiidiyo oo beriyo horaba ka tagay sanadoodba mar la jadiidin jiray sida darteed waxa dhacday markii 4 beelood ay beeshu ka kooban tahay makti meel ku wada bixisay oo qodobada la soo saaray waxa kale oo garatay inay guddi dhaqan ay maxaa ku oreeyay samaysatay oo dhaqameed waxa jirtay bay ahayd sideedaba guddidaasi 50 sanadood ee soo socda wixii lagu dhaqmi lahaa guddidii sameyn lahayd weeyaan waxa weeyaan oo kale oo arrinta markay hawshaa soo dhamaysatay u dhaaftay sidii ay degmooyinka jaarka dadka jaarka yihiin nabadgelyo kula noolaan lahaayeen ay ku wada jiraan wanaagsan ku ahaan lahaayeen waxay kaloo ka hadleen inay maxaa ku oreeyay sanadkiiba mar hay isku timaado beeshu oo hawleeda daneeda 4 degmo ay degantahay ka wada hadasho sidaa darteed anigoo suldaankii beesha markay soo dhamaysteen oday dhaqameedka hadalka shirkan jaraa'ida qabanay anigoo soo xidhaayo waxa ku soo gabagabaynaha sida maxaa ku oreeyay ku dhamaaday warku maxaa ku oreeyay beesha tani sida odayayga horeeyo badani hay meesha ka hadleen darkayseen iyadoo wax khilaafaad oo dhex yaalay jirin wax dhib oo dhex taalay jirin ahayna turxaan bixin beesha dhexdeeda iyo nabadgelyada beelaha ay jaarka yihiin si uu leeyahayda ayay maxaa ku oreeyay soo gabagabaysatay si farxad ay ku soo gabagabaysatay dariyo dibadba intii ay qusayso waxaan sheegayaa in beeshu
ay hawlaheeda mar kastaba hadday tahay xagga nabadgelyada iyo hadday tahay xagga maxaan ku leeyahay horumarka gobolka iyo xagga dhexdeedaba hay maxaan ku leeyahay ka tashato waqti sanad walba ay isku timaado 2 goor ilaa maxaan ku leeyahay 1 mar ayay maxaan ku leeyahay go'aan ku gaadhay kolba siday ugu suurowdo horti waxa weeyaan dib u heshiisiinta beeraha Gadeebusku qayb walba dhinacyadooda ay ka wadaan maxaan ku leeyahay sida waxyaalada maxaan ku leeyahay turxaan bixinta dhexdooda loo soo turxaan bixinayo kale bay ka mid ahay tan marka sidaa darteed meel kastoo joogtiin dadka maxaan ku leeyahay beeshan ay ka mid yihiin salaam baan soo gudbinayaa khaasatan kuwa qurba jooga ee jooga Djibouti iyo dibadda meelayo kale ee maxaan ku leeyahay Soomaaliya ilaa Itoobiya meel kastoo joogaan sidaa baan inagu soo maxaan ku leeyahay soo gabagabeynayaa sidaas iyo maxaan ku leeyahay ma salaama dadaal wanaagsan insha Allah dibana ula soo xiriiri doontaan iyadoo hawshu ay sii soconayso halka laga sii qaadayo waxyaalada hadhay la sii wadi doono salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh